كل وناكسن أنت هذا نقدر ونساي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل أيوه تيحشو كويسو هذا برنامج سوق channel ka subscribe garee muuqaalkana si share garee mid kalena waan ka dardaarmayaa waxaad noo reebtaa comment caafimaad qaba inta caafimaad qabtay hello inta kaleena yalla okay comment caafimaad qaba nooga taga barnaamijka marka daawatid oo aad dhameystirtid oo aad fahamtid marka comment qor adoo ciwaanka ama sawirka ama halada hore arkay markiiba comment qorin oo hawlana ana ugu soo horreeyay ama hay soo comment ugu horreeyay joog mawduuca markaad fahamto comment wanaagsan oo anaguna wax ka faa'iido dadka wax ka faa'iidaan soo qor caayida hanoo soo faygarina fadlan aad baad maasantiin laab ololeysa iyo wadnahii raagaya naf xiiqsan oo dhididku maryaha qooyay qof shaqo ku daalo waase fadhiistay ruuxda lama kadeeday waxa ay doonaysa garo orod oo aadan 19 xaruntiisa kuugu dhow ice creamka loo wada bogay carabkii mar dhadhamiya lugta socodka soo noqoshada badinayo adiguna nafta ku soo qabooji allah ilaahay halargeysi tabaysay dadku baahi u qabeen naftu oon ugu xidhneed caruur iyo ciroolaba isku hal loo baadi goobayay ayuu aadan كانو ايس كريم ديف لو قبي عاصمتي مكها قبتره وارياده لمانو انت ubadka alla siiya ku arsaaqay waarinta isjecelays ilaashatay naftu waxay doonaysaa lahi kacayso ha ka baajino ha kala bakhaylina ordo aadan 19 ice cream nafta ka soo ontira عربك هديات صارتو أدمري لسه دميسو هذا 19 آيس كريم أنا هو إن نفتو مبسوط نقولي صوصو لا بشدة بدين يسا بالكالي أنا جو عتشب هذا إلى عتشب هذا 19 آيس كريم وحاول ما كل يحافظه هرجيسه أظن صعود يسافر دير بقلين أكتاذا يا آكستا والله قفرة سوق الدحيل الله ودده هالبوله تكتغير هذا لا ما يكون يهدخ صعوب بقه نفتن أون دي في سنة هراجيسه إلا laabta qabooji waan wax kasta oo la walaaqo ice cream lagu ma sheegay aadan 19 ila soo eega barnaamijkan ka hadlayna waxa uu ku saabsan yahay marar badan oo ka hadlay laakiin maanta mawduuc kale ayaa ka soo kordhay xaaladda waxaan uga hadlaynaa sida waaqaca ee taagan ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Cabdi Bike Nairobi حالته كسر كردي يحال كيس يسقى هرا واحد الله أو حقه دبتها رنتها بندي كني سواه الشوجة حتى مر عن صوينه وربحنه ضد فلك كتب بي كتشري سي محيها كرك حال سواء واحد الله عن قتل لونه أنا أقول الشيء جديد مقعيده أو تقفكم مرد عاي هاي إن أدبتما حلاقي باب شيء كاس إن يجد أما أي أسوق كل تسمع الدرام برنامج كله سأسترتد بنوقر لكن وان مقعوني كرك حادث حال كنتنا وانا ذي شيء ده فربنا بالله يابن محمد سعيد عبد بيكي قف كمرك ما أنت عندك برنامج بدأ يسمع ده مرك اللي يقفر بديه عنصر باته oo Facebook aan lahayn la sameeyo oo dad aan caayo oo dadkii la caayay aan 500 jeer u sheego aan kula waranigu Facebook ma lihi oo ilaa oo aan soo fariisto oo wax way iga qaadan waayeen inay gula dagaalamaan oo igu cunsuradayaan taa marka daba furkan saadaaladna rubbaan idii sheegayay in yaro hordhaca ka horeysanayay Soomaalida barum saban hargeysana ku dar Soomaalida dadka muqdisho jooga ayaa ugu nadiifsan marka laga hadlay way dibku laakiin wuxuu ka jiraa qolada reer waqooyiga wax alla wixii koonfurta Soomaaliya oo dhan ah ka dhaca hadii tuulo koonfurta qof lagu soo dhibaatay ama wax ka dhacaan qofku wuxuu oranayaa all reer muqdisho ama reer xamar soo qaadanay qolada muqdisho degto oo iska dad wanaagsan waxa warray wax lagu haystaa iyaguna midka dibka la siideeyay oo madax ayb iyagu marka ay bikirku kaliya ismaqlaya reermadasho ya laakiin ana waxaan aaminsanahay dhacdada kaga dhacday Maxamed Bike Nairobi horena waan u sheegay dhacdada Nairobi kaga dhacday Bike hadii uu Muqdisho tagi lahaa inaanay ka dhacdeen oo ay soo dhaweyn lahaayeen oo ay soori lahaayeen oo marka dambe wax ka tabanayaan ay wax ka taban lahaayeen
laakiin tani gunni bay ahayd tani wax Soomaali ka dhacda ma yahay laakiin sirta la siiyay waxay ahayd farxiyo kaba yare inta fanaaniinta programkii barigii ugu horeysay barnaamijkan bilaabnayna program baynu ka qabanay iyadoo Muqdisho show ku dhigaso in kaliya Xasan Gantaal uu show ku dhigiso dagaal ka dhaxeeya dadna ina tartan waxaan jeclahay ragnimadeed wariya waa nin caadi taas top iyada ka hadashay si rasmi ah uga hadashay programka BK dhacdada ku dhacday si kaligii ma fanaan kasta oo tagan Nairobi waxa la doonayaa in uu u sujuudo koox halka joogta oo ilaa xarkaheedu dawladda Kenya ay ku jiraan oo power leh hadii kale waxa koodhan oo ku dilina show ma qabsoomayo horta sujuud hadda sujuudi weydo out banaank dadna iyada si rasmi ah uga hadashay hadda waxa jecelahay inaad barnaamijka daawatay koo iyo laba dad ka hayso hadalkeedii noo kor wax la qariyo la duuduubo qoladan warbaahinta iyo youtuberadu ayara grant showgay wixii ka soo kordhay ayara farsameeyaan yara buuxiyaan dadka aan runta loo qeexin farxiyo kaba yare xalay furkay tuuratayda lafteedu waxba ma qarin fanaaniin soo imka aad loo dhigeysto oo ninka Xasan Gantaal ku jiro yarka dheer ninka sidoo sheegtay markaa iyadoo ay showgan qabanaysiin in ay yaraayo gaabna nimanka iyo qolo kale ayaa waxay Kenya ugu sareeyay Kenya marka soo tagto qoladaas ugu soo saaray noo kale bay qornaysaa ma u tagtay sidiide hadda u tagto qolada tagto meesha VIP ugu kacay واحد من كل شيء مديدة فرحيك بينا ولا حسوستا سيدي شو كذا هو ولا كذي سيدي بيك يوكل مركب هو قلوب حي أنسري شقة أيوة تبا هل كي كذا شيء أنت كمان كسومالي ده وسومالي لكن ديجنا كذا شيء ديجنا كذا شيء سيف حيك ولا شيء طيب كل كشنا ها سومالي ديجنا توبيا أي كذا شيء oo waxay tahay waxa ku jira oo bariga aan waxay tirbiga shooganiga leeyahay kiciyay ninka muu hayn aniga dibto siin gaarsiin laakiin waxay tiri qabaaqayaalaha sida socdayaasha ku jiray marka leeyahay Xasan Gantaal iyada lafteeda 2019 markay xamar qoonisi shooga markii la dhajiyay showgii farxiyo kabeere Muqdisho ayuu ka dib tagay kula dhajistay waa tilisjiitay laakiin gabadho geesiinay markii dambe gacmaha isqabsaday showgiina waa la qabtay marka gabadhii way dacwooto waxay tiri waa Soomaali Maxamedey Kenya nimanka laga soo gaaro haddii kale waa deesaas iska shaqeynayeen haddii fanaaniintu ay ka tanaasulaan showyada ama barnaamijyada Kenya ku qabanayaan waxa dhacay wallahi horta niyo Kenya waxa jooga dad fanka jecel waxa jooga Soomaali فنك تعال عاد فنك بسيء فنانة سوداوية لكن هذا ترك سومر ويدو ولا سوداوي بتجي أنا ممكن حلاي إمك حيكون مقالة جروب أد وحيمك كتير جروب كتير ببلانك وجروب بدر ولا حكومة دولة حيكون يجين وسيرو حلبانو كتوميال تجمو أي كلية waxa ku jira imika inan Nairobi wariyaka oo caan inan kale oo isaguna fanaan oo caan heesaha dadka dhintay iyo dadka noolba soo koobagalay waxa ku jira inan kale oo isaguna mujaajilaysta inan kale yiraahdo isagana sidoo kale waxa ku dhacay laakiin isagoo xariif waxa uu ka badi كير اللي يهدوني كل يهدو إيش سيكي سو متشمتي استوى الكلكي لكن سو وحس تبلين يبلين بي يعني سيدو كلا نيل اللي يهدو يسوقنا الليل بلين ولا نيروبي كأذا ما أيوة كحدة مركاني هو إن قروح معها وناقنا معها إن قف كفناك يدين مريا أو يدين ماذا هالتراثان إيش يشوده ama anaga horta nacise na soomar BK sidoo kale ku dhahay kaalay anaga noo kaalay nala kulan BK wuxuu ku dhigay teelagu suuban qano
waxaanu isku qabsanaa markan aan kula kulmayaan ku yeedhayo waxaad iga rabtaa haddaan kula garanay horta waa la iska sharafsinaya waay halkana keedana maadiki waa kan kii eedaamay waa kan ka tujinaya waa kan kuwa safka ku daba tukada waa kuwan halkan salaad baa laga tukada ragcadeedu waa intaa salaada ma tukati weysada maqaadata mise diidi midba haddaad diido halkaa bannaankaad ila tegaysa showga dadnimo kaa wax la sameynaya wax la dhan barbugando hoteelkaad garaysatay way og yihiin way garanayaan oo meesha nimanka in badan bay ku noolaayeen barbugando warqad barbugando siibo qoreenba baa u sitaala magacuun baa laga bedelaya imka tusaale waxaa ku sii yaallay farxiyo kabari ka kala cekay soma warqaday u qoran warqadeedii halkaa farxiyo kabari baa lagu bedelay maxamed biki sala showga maxamed biki waa warqad oo sii qoranta showga maxamed biki waa la isku leynayaa qarax baa ka dhacaya dadkaas isku leynaya dhiig baa daadanaya hoteelkaaga muu baqday ammaankaa ma ilaashatay xafiisaha ka furan boo ka shaqeeya miyad waalataniyo kowdhe marka had iyo jeerna dadka soomaalida ah dhibka ay sameeyaan qolada reer waqooyi waxay dusha u saaraan qolada muqdisho iyo soomaaliya iyo soomaalida way kala duwan yihiin muqdisho waa magaalo soomaaliya waa dowladda federaalka soomaalidu waa shanta soomaali ee sinjiga ee afkaan ku hadlana isku afkaranayno marka muqdishona dee ha iska dulqaadato soma inankaasna mar haddii layidhi Facebook bay beri ka qoreen 2016 markuu aadka BK uu cirka marayay oo lagu yiri markii maray xidiga geesku tii xamar tagada dara ka soo noqdo jirtagi jira xidigo ay Facebook lagu soo qoray xamar ina tago xabad ba ka xiga wanneeka Facebook sa isticmaalo war Instagram male Facebook male YouTube male waxba male ninkaas only kaliya sa ku gahay WhatsApp isticmaalo deedna shan boqol jeer hatta bari ma fiirooda ka daaday isagoo leh anigu social media ma isticmaalo inta magacay ku isticmaashay si wanaagsan u isticmaala halka xamar dhow jeer buu ka hadlay muqdisho isagoo ku dhashay marka dhow jeer marka kelmadii beenta ahayd uu isugu beeniyay hatta fiyo soo fadhiistay marka laga qaadan waayo inta jeer uu wax kasta ku hadlay oo hatta heestan xamar dhaxalmay helin somaha ay qaraxa barkii qaraxii soobe xidiga geesku ay qaadeen soo isagu la xakamu saar fikirkana isaga lahaa dadna marka wax kasta laga qaadan waayo dee waa kaadhi muqdisho iska maqnaato marka reer muqdisho waxaan leeyahay intiina wanaagsan ee caqliga saliimka ay ku jiro markasta in wanaag ka talino qolooyinka ay tabana mid qaar fara badan shalay qolooyin fara badan oo doodiyay baan arkayo qaar muqdisho u dooday dadkii muqdisho nacsineen markii dib u dhigtooda leeyahay Soomaalida kale u dhashay muqdisho ma baahaba marka muqdisho waxa dhibaya anoo meedhano reer muqdisho iska dhigo dadkii caay dad qofkii muqdisho dib u nacay Soomaa marka program waxa weeye waxa doonayaan ku sii jaro horta Soomaalinimada yaa leh Soomaalinimada xale inta qof af Soomaali ku hadasho isku wada dhiman af Soomaaliga ku hadashay habeen dhawada nin oday ah oo dadka muxtarama ixtiraamo oo maraykan mo chicken meesha ku nool baa la soo hadlay kaas marka maalin doodan lahayn inta af Soomaaliga ku hadashay markaas uu kelmadda joojiyo xasan maxaa dhacay markaas uu tii af baka biki ba kelmadda keenay oo dadku ka xanaaqan markaas maxaa dhacay oo meen af Soomaaliga ku hadlay tii af Soomaaliga waxa ku marka mid Portuguese ku hadlaya mid Oromo ku hadlaya mid Talyaani baranaya marka qolku asto la sheegay waa ku geystay marka af Soomaaliga ka daayo inta Soomaaliyeed marka Soomaaliyeedka waa Somaliland Soomaaliyeed Djibouti jigjigadii dowladdeegaankii tii Kenya wixii oo dhan oo ummadii Soomaaliyeed si jiga lahayd dhalatay baa qaaday saas bay ugu fasiray marka halkan ayaan lagu qabsanay meelaha ma garatay haddii imka anigu aan Somaliland aan aamino oo aan taageero madiinta ka baxay maya haddaan calanka buluuga qaadan waayo ma Soomaalinimada naxasi maya waxa weeye Djibouti calan bay leedahay passport bay leedahay dawlad gaar ah leedahay madaxweyne leedahay jigjiga Ethiopia hoostata dawlad goboleed weyn Kenya wadto Kenya hoostaga calan babalaba hadana calanka buluuga iyo calankooda ma marka aynu kala saarno Soomaalinimada iyo dawladaha la kala yahay
haddii siyaasad la isku hayo dee inagu dad siyaasiyiina malihin dad shacab ay nahay dad walaalaha nahay siyaasadda halkaas kasoo dhigto siyaasadda halkaas kasoo dhigto calanka buluuga aynu kala garanno iyo dowladda federaalka ee muqdisho joogta ee madaxweynaheedu farmaajo yahay iyo ummadda soomaalida kala garan soo ma qofba haddaad diiddo dee haddaad tirada war somaliland bale koranaya cunsur baate waa maxaa somaliland iyo cunsurnimadan iyo diintaad ka baxday waxaan daawanayay cali xaraare barnaamijuu leeyahay sideen maxamed biiki intuu islaamnimada kusoo noqon dhankiiba gaalba laga dhigay waa somaliland keliya qof hadduu somaliland aamino ma diintu ka baxay barogaraamka aad baan la yaabay marka waxaan xasuustaa mataqaana berigii nebi maxamed risaalada loo dhiibiyey waa tii diinta hoos u bilaabatay kadibna nimankii qorsheed waxay samayn jireen ninkii diinta islaamka galaa dadkii uu ka takoornaa jiray umashaha cali xaraarada dhegeysanayay qorayshtii baan xasuustayba nin weliba madaxweyne moojiba meel ku dhacay maarti mar madaxweynaha gabadhaha uga darasalo fakiisu iskaga dhaqay ayuunbaa yidhi intuu biikii diinta kusoo noqonay war biikii diintu ka baxay waa qof walaalkiina waa qof islaama waa qof soomaaliya waa qof reer cergaaba waa qof reer somaliland marka hadda diinta laga bixinay farxiyo kaba yare reer muqdisho ummadda soomaaliyeed meel kasta iyo daafaha adduunka ka joogaan aad baan idiin salaaminaa barnaamijkan si caafimaad qabta il caafimaad qabta ku eeg gacan caafimaad qabta wax kusoo qor aad baad mahadsantiin qofkii fahmi waayowna farxiyo ku yar noqon dayaxshow fadlan subscribe gare muuqaalkana intuu kusoo gaadhay like comment share una gudbi walaalkaaga kale siduu ogaado xogtaan maanta idiin siino